waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogo inaad wacdi u baahantay. xabaalaha in laysku wacdiyo, oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo, oo masaajidka laysku wacdiyo. waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weecweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay, one line inuu taagnaadaa bini aadamkay ku adagtay. sidaa awgeed ayuha alaxiba, wacdi kama maaranno. wakhtiga kooban daraaddeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda, iyo qur-aanku taariikha aad u ballaadhan buu ka warramayaa. walaqad calimtum aladiina اctadaw minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin fajacalnaaha nakaalan lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidatan lilmuttaqiin baa ilaha yidhi. qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay duul la halaagay oo daayiro laga dhigay ayaa waxaa rabbi leeyahy waxaanu ka yeelay nakaalan lima bayna yadayha wamaa khalfaha, ay cibra miday kuwaana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahy. kuwii joogay iyo gadaasheed dambe kuwa yimaadaaba waxay ku cibro qaataan, iyo wamawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alla ka cabsanaysa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wakullan naqusu calayka min anbaa'i الrusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi اlxaq wamawcidatun wadikra lilmu'miniin. ambiyada qisaskeeda iyo rusushaa kaaga warramayaa baa ilaahay leeyahy si qalbigaaga loo dejiyo. diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey, iyo mawcida iyo wadikra, wax waana u ah iyo xusid. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sifaynayaa hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. idan ayuha alaxiba, waano kama wada maaranno, dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahannay. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya isagoo ambiye waaninaya. qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin baa ilaahay ku yidhi. nebiyullaahi nuux oo nebiya ayaa ilaahay leeyahy inii aciduka an takuuna min aljaahiliin. waxaan kaa waaninayaa wax magaratada inaad ku biirto baa ilaahay ku yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramayaa dadka mu'miniinta ah maray gaf ku dhaceen xadiiثati lifkiya wixii la mida, yacidukum allahu an tacuuduu limilihi baa ilaah yidhi. war ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaad waxaasoo kale dib ugu noqotaan, limilihi abadan in kuntum mu'miniin. waxaa qur-aanka ilaahay inooga tilmaamaya kufaarta in la wacdiyo, waayo iyagu waa asxaabi alquluub bay yihiin, waa bashar. wacdigu dadka badh baa u haysta caamada in la wacdiyo, war ama brofesor ha ahaado ama miskiin suuqa jooga ha ahaado, waa insaan ma dhaafo. karat almacluumaat ma beddesho insaannimada. haqaafo badan inaad xambaarsantahy macnaheedu maaha inaad bini aadamnimada ka baxday. waaba ha is afuufin oo ha isbuufin. dadka badh baa u haysta hadduu PhD soo qaatay hadduu waxaa soo qaato afuufmo oo mooda inuu bini aadamnimadii isagu dhaafay, iyo meelaha laysku wacdiyey waxaas ay la yar tahay. ma aha sax. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy xataa gaalka qul innamaa acidukum biwaaxida, gaalo waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hal midaa idinka laydinku waaninaya ila gaal baa haydeene. an taquumuu lilaahi mathnaa wafuraada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiide. idinka mid baa laydinku waaninaya. waa maxay gaalka midka lagu waaninayaa? mid ama laba isu taaga saa doontaan inaad fakartaan, waa ka fakartaan risaalada iyo rususha iyo ambiyadana la soo diray. maa bisaaxibikum min jinna. dee nebi iyo nin waalane miyay isu egyihin? nebi iyo nin waalane, ninka waalane waa nimaan xikmad ku hadlayn, waa nimaan wax saxa sheegayn, waa nin arrinkiisu qasan yahay. nebina waa acqalu nnaas. waxay dhahdaan qofka nebinimada sheegtaa laba mid unbuu noqdaa, imaa akdabu alkaadibiin inuu yahay iyo inuu yahay asdaqu asaadiqiin. hadduu dhab yahay dee waa ku run sheega kii u run sheega badnaa. hadduu been yahayna waa maxay?
ku been sheega kii u been badnaa buu noqonayaa. labadaa qof adiga ma iskaga kaa qaldamaya? qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan leh ma iskaga kaa qaldamayaan? how many imise miinis ama sababood baa jiro bini aadamka loo taskareeyo inuu run kuu sheegayo iyo inuu been sheegayo. innagu dadka caadigaa baynu kala naqaanaa, ninka beenaalaha iyo maxay ninka run sheegaha. markaad muddo la dhaqanto midna baa kaa qarsoomaya. markaa nebi kaama qarsoomayo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalkaa u baahan in la waaniyo, ilmaha carruurtaa u baahan baa ilaahay leeyahy. waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim. ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim oo xikmad rabbi siiyey. xikmaddiisii waxaa laynooga soo naqliyey innagoo laynoo sheegay intanba ka mid ah xikmaddiisii. dhaqankii uu kula dhaqmay ilmihiisa ayaa xikmaddii rabbi innaga inoo soo guuriyey. luqmaan oo ilmihiisa waaninaya baa la yidhi oo ku leh wiilyarahaygiiyow yaa bunay waa tasqiir, wiilyarow laa tushrik billaah, ilaahay ha u shariik yeelin, ilaahay waxa ku lamaanaynin, waayo ina shirka la dulmun cadiim, shirkigu waa dulmi weyn. idan gaal baa la waaniyaa oo carruur baa la waaniyaa oo dumar baa la waaniyaa. wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faaciduuhunna baa ilaahay yidhi. gabadhii ninkeeda ku madax taagtaa war waaniya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. gaal daaya munaafiq baa la waaniyaa. ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa baa ilaahay yidhi. inta munaafiqiin ilaahay ka warramay ayaa rabbi wuxuu yidhi nifaaqoodaa ka jeeso oo waani oo waxaad ku tidhaahdaa war xeel dheeroo lafahooda gaadha. mujrimkaa la waaniyaa, gaanga iyo mujrimka. hays odhanin warkani waa gaange maxaa maray, war waa bini aadam. mahmaa facal wa facal, bini aadamnimada kama bixin, insaanna wacdi kama maarmo. sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. qola asxaabu sabtigii markay 3 qaybood u qaybsameen, qaar dembigay ku dhaceen, qaarna way waaninayeen, qaarna way iskaga aamuseen. kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin baa kuwii kale la hadlay waxay dhaheen lima taciduuna qawman illaahu muhliku, waar duul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaan? dabeetana waxay dhahdeen waxaannu u waaninaynaa 2 sababoodba. annagu inaannu badbaadno daraaddeed oo aan aakhira naloo qabsanin dadkan wax ma u sheegteen. kuwa dhaforrada xirta iyo kuwa khamrada cabba iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saaran waa inaynu wax u sheegno. isagu ama ha aqbalo ama ha diida, isagay u taallaa. laakiin innaga xilkayna saarani waa maxay? waa inaynu waaninno. waanadaynu waaninayno innaguna waa ku badbaadaynaa. walacallahum yattaquun, iyana la arkee inay alla ka cabsadaan. imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boob galeen dad ka soo kaxeeyey? imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay? yani waa bashar. mahmaa facal wa facal waa bashar. basharna waana kama maarmo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo. idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin. dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal. waa macquulaad, shay caqliga gelaya. waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg. hadday dood noqotona doodaan xagxagasho lahayn, dood fiican kula dood baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilih wahuwa aclamu biman ihtada. dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og, adigu shaqo kuma lihid. adiga waxa ku saaran baa nebiga la leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto. qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaa'un calaynaa wacadta am lam takun min alwaacidiin. waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin. laakiin innaga waxaa layna yidhi
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي حالكم قبقبي يعظكم لعلكم تذكرون إلهي وحيد فريا بالي عدالة إيا الصمو إيا قرابة حديد إيا حموها كديراتان إيا منكر كوحا شرع قديدو أسكاكتكتان إيا الظلم قوة تشوشيسان والرب ويد وانين يا إلهي لي يعظكم لعلكم تذكرون وخطبت معوك استين تبضنا يدا إنه مغلو إلهي وحولي ربا إذن وانين وحانا ليدن وانين لعلكم تذكرون أيها الأحبة warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahantay waxaad u baahantay inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhahay wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi